kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasha aynu jecelnahay ku soo dhawaada qaybtii afraad ee sheekadii aan ugu magac darnay curad oo aan idiin soo gudbin doona haddii aan la idmo waxaa sheekadan qalinka u qaatay wariye Maahir Jaamac Aadan. qaybtii saddexaad ee sheekadan ayaa waxay noo joogtay in mar kale la soo garaacay qolka guriga uu jiifay waxayna qaybtan afraad ay ku bilaabanaysaa sida tan si tartiib ah oo taxadar badan ayaan u gaagaabsaday dhinaca iridda aniga oo aan furin ayaan dhegta aad ugu dhaweeyay si aan wax shanqar ah aan ugu maqlo cidda banaanka taagan ee soo garaacaysa ilinka qolkayga maya waxba ma maqal sidaa awgeed anna waan ka baaqsaday inaan furo iridda waxaan dib ugu soo laabtay gogoshaydii xoogaa hurdo la'aan iyo cabsi yar kadib diihaalkii ii hayay awgii ayaan mar kale i siiyey hurdo oo waxaan jiifay ilaa aroortii uu waagu ka dilaaco qurac kadib waxaan soo fadhiistay geedkii ku yaalay guriga hortiisa halkaas ayaan cabaar isla hadlayay kaligay aniga oo la sheekaysanaya naftayda sida ay ka yeeshay marxaladan i haysa xilligaasi isma ogey laakiin isla hadalkaygu ma ahan kaliya mid aan gudaha iskala sheekaysanayo ee sidoo kale waa mid mararka qaar si toos ah aan afka uga hadlayo oo uu ruuxii ii dhow i maqli karo kan iga fogna uu dareemi karayo dhaqdhaqaaqa bushimahayga iyo gacmaha wax sharaxaya waxaan arkay miyaanay ahayn wax uu qof abwaanahi uu la gabiilha walaashay Sahra oo aad daawashadeeda ugu mashquulsaneed ayaa ii timid markiiba waxaana hadalku ay ugu bilowday Sahro see tahay walaal waxaan ugu jawaabay waan fiicanahay abaayo Sahro waxay tiri alla ayaa mahadle oo xalay hurdo wacan baad heshay maasha Allah mar aan xil dambe aniga oo war kula soo ordaya kugu soo garaacay waad iga furi weyday waxaan ugu jawaabay oo saqdi dhexe waxay ugu soo garaacayay ma adiga ayuu ahaa Sahro waxay tiri ha aboowe war aan maqlay baan rabay inaan kula wadaago waxaan moodayay inaad soo jeedo maadaama aad fiidkii galabtii seexatay ka gudub hadda maxaad dareemaysaa caafimaad ahaan waxaan ugu jawaabay aad baan u ladanahay abaayo ee warka hadda ii sheeg bal Sahro waxay tiri haa wax kale ma ahan waxaan maqlayay ninkii walaal Maxamuud ahaa oo maamada la soo hadlaya isaga oo ku adkeysanaya in aadan weli adiga helin caafimaad taama oo lagugu celiyo meeshii jinka maamuduna waxay lahayd kaalay arag adiguna oo wiilka aad buu u fiican yahay ugu dambeynna waxaa lagu ballamay inuu maanta xaafadda u yimaado si uu u hubiyo caafimaadkaaga waxaan kugu soo cararayay walaalow inaan kuu sheego intaas kuna faro inaad isdejiso waayo ma rabo inaad xaaladii xumeed mar kale aad gasho waxaan ugu jawaabay oo sabab Maxamuud ma isagaaba kala jeclaa nolosheeda iyo waliba geerideeda muxuu caafimaadkayga uu shaki gelinayaa ma fahmin sababta Sahra waxay tiri haa waa runta laakiin ninkaas kulley wuu imaan adiga taxadir walaalow waxaan ugu jawaabay bal waayahay abaayo mahadsanid Maxamuud waa curudka aabahay laakiin aan kala bahnahay waa 5 wiil iyo Sahra oo isku baa aniga bah gooni ayaan nahay waliba xagga hooyo madi ayaan ka ahay hooyada anigoo yarbay ifka ka tagtay waxay soo korisay maamadan aan noolahay oo ah eedaday ama bahdii weyneed ee aabahay uu ka tagay isagu waa ganacsade haddana labadeenu aad isuma jeclin cidna ma heshiisiin karayso waayo afarta wiil ee kale waa ay ka maqan yihiin dalka saakay waxa ugu weyn ee guuxaya ayaa ah muxuu ka doonayaa Maxamuud haddana waxaan is iraahdaa isdaji waa walaalka oo doonaya caafimaadkaaga inta aan sidaasi u fikirayo Sahro waa ay ka kacday agtayda oo hawl u taalay bay qabsanaysaa anigoo isweydiinta iska wata ayaan mar eegay horteeda waxa isla meeshii hore iga soo muuqatay gabadhii yareed indhaha ayaan masaxay waxaan eegay haddana aan isceliyay haddana waxaan isiri mar kale haddana dhaxlin dhibaatadii xooganeed waxaan isku qabtay indhaha aniga oo halkaygii aan ka kicin waxaan akhriyay dhowr suuradood oo gaagaaban
anigoo indhaha isku haya ayaan maqlayay guuxa gaari agteeda la soo istaajiyay. Markaan furay indhaha waxaa soo istaagay waa gaarigii walaalkay Maxamuud, wuxuuna iga beegan yahay halka ay taagneed gabadha. Markaasaa intaan kor u istaagay si fog u qoraansaday meeshii oo maba joogto gabadhii. Kadib baa Maxamuud oo ka soo degay gaariga oo aniga ii eegaya aan salaamay, kadibna wada galnay guriga. Arrinta ugu dhow aan ku fashilmi karo ee Maxamuud uu doonayo in uu iga guuleysto ayaa ah in uu su'aalo maxaa kugu dhacay, bal noogu soo sheekay. Haddaan qisadan bilow iyo dhammaad aan sheego, waxay noqonaysaa inaan waxba iska kay bedelin ama aan jilin been ahi sameynayay. Maxamuudna way u rumoobaysaa inaan weli isqarinayo oo aanan helin caafimaad taama. Sidaa daraaddeed su'aashii Ilaahay ayaa igu beegay inaan ka jawaabo. Waxba ma xusuusto aniga oo inta dhowr jeer la igu celceliyay, haddana aanan sheegin wax ka badan ma ogi aniga. Taas waxa ay ka dhigan tahay inaan ahaa ruux lagu jiray xilligaasi, haddana ka caafimaad qaba wax kasta oo soo maray. Intaas kadib Maxamuud uu ku sii adkaystay go'aankiisii inaan anigoo weli caafimaadin, ilaa markii dambe intaan xanaaqay aan iri, malaha jinka iyo waalidaba waa waxaad adiga ila soo maagtay. Waryaa, Ilaahay baan kaan magan galay ee idaa noloshayda. Hadalka wuxuu gubay Maxamuud oo inta uu markiiba isaagay yiri, waxaa tahay waad arki doontaa. Kadibna wuxuu gudaha la galay maamada oo ay tala gooni ahi wadaagayeen. Waxay iga go'an haddii ay maamada hadalkaasi ku raacdo inaan ka tago xaafadda oo dhan. Haddii ay ka diidana aan ogaado xaqiiqda waxaan arkay iyo sababaha ninkan Maxamuud uu heerka u shaki gelinayo caafimaadka noloshayda. Mararka qaar aadanaha waxay halista ugu badan ay kaga timaadaa qofka ugu dhow, laakiin waa in mar waliba sabab ay jirtaa. Haddaba aniga iyo Maxamuud ma jirtaa sabab shirqooladan midkeen uu ugu fikiri karayo? Waa maxay sababtaas? Waxaan cabaar ka warsugo natiijada wadahadalka maamada iyo Maxamuud. Anna heegan sii ahaado, waxaa mar qura igu soo orday Sahra oo ilmeynaysa, weliba ku dhawaaqaysa hadal aan sax ahaan la fahmi karin. Ma waxay leedahay maamadii waa la dilay? Maye, ma waxay leedahay war carar oo baxso adiga? Maye, armay leedahay war run ah baan soo ogaaday ee kaalay. Intaasba mid uu yahay ma aqaan. La soco qaybtii shanaad ee sheekadii loogu magac daray Curad oo uu qoray saaxiibkeen wariye Maahir Jaamac Aadan. Inta aynu sheekada xigta oo qaybta shanaad ah aynu ku kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Hase yeeshee channelkan Horfadhi waxaad dhahdaa subscribe, like iyo share. Waad ku mahadsantiin dhageysiga iyo daawashada sheekadan.